maxkamadda u jeeda ula qaatay hore wuxuu ka bilaabay tufeekoonti inuu waabiyo gudow galay ula wata qorayna saan u wata wuxuu kala raacday waa dadkii hooyooyin tuma awoodayda maaha ayaa loo diray hogaamiyaasha xamalida taadiga tani waa xasuusta waqtiye la iska ilaaway iyo waayo qofka qoriga wata uu ahaa kan kaliya ee la gargaaro xoogna ku qaato qoondada qoysaska masaakiinta sodma hay'adda dowladda federaalka Soomaaliya u qaabilsan wax ka qabashada musiibooyinka ayay maalintan ahayd in 3,000 oo qof ay gaarsiiso kartoomo timir waana hargaha iyo saamaha goobtaas ay ka socoto shaqada waxaa soo bartilmaameedsaday dablo xoogga Yaasiin Xuseen Abuukar oo iska dhigaya nidaamiye maadaama uu yahay askari qori wata isuna arkayo waxgal hubaysan warkiisana uu soconayo laakiin kaliya leh hal ujeedo oo ah inuu wax ka qaato timirta dadka masaakiinta loo qoondeeyay sida ay la gashaba waaba loo yeelay rabitaankiisa waana loo diijiyay tiro kartoomo timira isna waa hakan waayay ilaa xamaaligii timirta ay isgaaraan loona sheegay in xadkabax ay tahay kartoomada uu boobayo iyo tiro dheeraada maadaama shixnadan ay tahay qoondo loogu talagalay qof iyo kartoon xooggii uu qabay ee ku tashiga aakeega ayay la gashay inuu adeegsado xabad uuna ku dhufto mid ka mid ah xamaaligii timirtii soo raray loona wakiishay qaybintiisa oo ah dhibane Maxamed Cabdi Abaadir timirtan dejinay xamaaliga ka xayaan mar baarka saarna waxay leeyahay kartoon qaad ana ogeyn mar labaad soo laabtay kartoon qaad kii hoola iska lahay mawlida waxa ay imaaday waxay leeyahay ninkan kartoon qaadanayo maamada waa soo qaylisay haddii asoo xaraw aan hay imaado asana waa imaaday kartoon isagay أنا ساو نكاس وتقال نكاس كرتون يصير أنا أي ما ذا وهاي ده هذا ما وحي جديد كرته هذا هذا سودك ما نوت على ده شكله مرك لما هاتي وادك مرك أنا دقيق وهاي ده أنا وجوده كجرنا نوع ما هذا أنا ما هذا هذا عين كرته ولا يقول وعلى قبته كعب حمال أنا قبته من عنك الجي وصل ونتي ولا ساقته وش يقول لفتي وهاي كل جبته خرج ليف كسائي قراي واسكت توري باس ay ku dhufto asaga marka muxuu ka rabaa adiga asaga gaar kugu beegsan adiga ka baxmaal ma ahayd maxaa gaar ugu dagaalamaysan kartoon isayday kartoonka uu diiday marka ninkaas uu tagay ana ma waxay diidi kartaa ana aaytanta ugu jawaab ana ma ada hooyaday aan kartaa say wax ku gaaray marka tii wax kaga dhacay ajarka hilibkii ka jirtay hilib laf ma jibis may meeqa xabba kugu dhacday baas ahayd 3 xab amala kugu dhacday hadda socod bilaad seed ma ka jarmay neerfa wax ka gaareen warqadaada oo riboodka laga soo qor dhakhtarka intuu tagto warqada riboodka maxkamadda keen iskana fariis waa kan isna eedeysanay dablo xoogga Yaasiin Xuseen Abuukar oo maxkamadda hor taagan waxaa lagu haystaa adoo goobtaada shaqada ka soo tagay inaad dhaawac kas ah u geysatay dhibane Maxamed Cabdi Abaadir oo xamaali ahaa ina xabad ku lafta lagu heestaa eedaasi ma gashay mise ma galin dadka ka qabtaa eedaas waa galay say wax u dhaceen waxa u dhaceen ninkan horta aniga waxa ka imaaday sawiib aan la ka timid haye xaafadeyda boonder ku taala soo socday wasaaradda hargeysa ama oo wax laga qiibanay mishaarkan oo qoyar 24 hal maalin ama la ka dhimanaa marka waxaan lacag oo qoyar xalka lacag laan waa ahaa haye marka waxaan isleeyahay meesha xarun dawladda wax laga qiibanay kaali maraan isleeyahay meeshii aan maray booliiskan la hadlay ilaa 10 saac meelahaas meelina shaqeyn kara amalan dhahay meelina qaraawi kara waxa soo galay in ayaga 3 qof ama ahay meeshii aan ninkii oo qoyar wada shaqeyn dhaxmartay anigii si u shaqeynay ninkaan oo meesha xamaaliga ka tirsan ayaa qorti galayba qoyar aflagaadan dhaxmartay ayaa aflagaadii kadib aniga niyo shaqaan ku jira hadda ma kula hadlayaan dhahay markii dambe adiga 10 saac markii la gaarinay adaa maxay aflagaadiinaysan dhahay shaqada waa dhamaatay markaan dhahay hore darbaxshi fiiri hore iga bilaabay anoo labisan waxba iga dhimineen oo qorigay wata hooshkii ani dhanba tootay idriiskayga wata adaa yaasil aniga gadaal aan u baxay meeshaan ku burburay markii darbaxshi fiirkii dadalay waana igu xoog badnaa ninka gadaal aan u dhacay marka waana igu xoog badnaa marka waxaan isleeyahay ninkaan adoo jiifo fadhiyo adoo jiifo ka inta
korkaada imaan lahaa jirkiis waa weynaa xabadkiis waa weynaa madaxiis waa arkay xabadda lugta waxaa ugu dhuftay in aniga aan nafsadeeda aan ka badbaadsado aasaab isoo bareeraba ninka xaalad kale aan ugu shakiyey marka haddiiba ninkaan adoo dariiskaaga iyo qorigaaga aduu qiimo waaye nin nooc kale waaye kaale iska qabaan isdhahay lugta xabadda iskugu dhuf marka tii dhacdee taase adiga booliiska la qaraabanaysa miya booliiska haa waaba weydiiyeyba ninka xamaaliga nafta u keenaa tiri muxuu kaa celinaya muxuu ku diiday micnaha kowdii hore aniga kartoon oo 2 kartoon amaan gatay aniga baawurka aan kala gadaal dhan anaa wakiilka ahaa 2 kartoon amaan maxaa la qiibiyahay meesha timina la qiibinay oo kartoomyaal haye baawurka gadaal dhan anaa joogayba booliiska kala gudaha ku yiri laamig ilaa iyo gees anaa joogay baawurka markii la dejinayo gudaha la gelinayo iyo markii dambe hadan dadkii wax shacabku waa la soo muxuu yahay markaas muxuu ka shaqeeyaa xamaaliga waa kor u saarnaa xamaal marka muxuu diidi karaa muxuu yeeli karaa wax la qaad xagga dhiglay ma hoo shaqo haa ninkaan nin waxaa iska dhigay meesha dhanba micnaa oo xamaaliga asi hogaaminaya oo baawurka dhan xukumaya mal iska dhigay ayaa micnaa hadal celin iyo afrigaadi waxaas marka uu geystay kadib aniga ma kula hadlayaan aadniyo markii aad afdhaafteen markii hore kadib oo soo laabtay galabkii soo maatay haa galabtii aan soo laabtay daawniyo maxay afrigaadiinaysan aan dhahay afkii ka dhamaanin rabaashi feera oo ugu bilaabo aniga markii gadaal aan u dhaay meesha kaamira leeyahay dad badan ay joogay booliiska joogay aniga ninkaan nafsadeeda wala baqaalayaas hadaa qoriga qaadi lahayd dilaa nin askari meeshaas markii tirsan shacab dilaa labada kartoon waa la dagaleeda ma isku qabateen asiga labada kartoon asiga shughul kuma lahayn 2 kartoon aan reebtay ma tiri haa kuwaas ma isku qabateen asiga kuwaas ma isku qabanayaan waxa ku diidi karaa marka asiga isku haysaan asiga oo dulmi kale uu maaqnaayo dagaal kale uu raadinayo aniga shaqadii iyo waxa maxbis inuu la raadinayo saasa uma leeyahay gacanta la galid hal qof bisa marqaatada sheegay anti kale ma sheegin booliiskaasna odaygaas ugu weyn been uu sheegay asigana ninkaas oo dhinaca fadhiyo oo odayga ku xigo iyo wiil kale ayaan weydiiyay shaqada marka iimaanay neew midna qaraaw karaan meesha ma gali karaa galay ilaa askarta anaga yareen saas ay tahay fuustooyin ali soo ruuxa meeshana video ilaa balaawi dhamaad ku ayaalay video goosgoos lagu soo dhigay usha inta awdatay usha awd booliska mid kamid ah idii bush mooy ana ul muwadan ani qoriga iyo booska iyo labiska aan watay marka ninka maxuu aad u garaacay ninkan ul kafka ma siinay aniga adiga ciidanka mushaar ma ka qaataa hadda mushaar waa qaataa shaqada ma ku soo dhacay haa ma qamar lagu xiray oo ciidanka leema xirin mar oo dhaqan liigay mooyee waalidkay dhaqan liigay mooyee ad waalidka ma dhaqan ku haa waana ciidanka lagu codsaday ka tashamalugay ka tashaha maxaa sameysay markaas waxa ma sameeyay balwada bas oo goor abi diiday goorma lagu fasax marka mushaarkaada mushaarka waa ii socdaba mushaarka waa ii socda meeqa bilaa ku jirta waxa yar ku jiray 6 bilood meelaas adiga booliiska hore mula shaqeysay arrimaha ma kala shaqeysay ma la qaraabad wiligay ma qaraabin ama qaraabad tan ay ugu horeyso tababarkaaga intuu ahaa Tobi kooxdii xamaaliga uu ku jiro horjoogahooda iyo askarigii loo xirsaaray sugidda amniga kormeer labaad booliiska Cabdullaahi Cali Cilmi ayaa iyana marqaatiyaal ah maanta adiga inta joogtiseen wax u dhaceen maxaa ogtahay meesha maxaa ka jireen ايش waxa la qeybanay maawna la qeybanay tamara la bixinay aha tamartii meesha lagi nimankan maalaani dadka u qeybayeen shaqaalahayn nimankan asayna dadku wal celinay dadku oo irida soo galay wixii oo karwati waxa soo kala celinay marka ninkan waa imaad wuxuu dhahay hal kartoon tamar leesi anu aan waxa ku masii karnay waxaan dada iska leh dadkii oo meesha joogana badal askari hal kartoon la sii wallahi halkii kartoon waa la sii mar labaad oo soo laabtay waxa la hadan hal kartoon ugu daray hal kartoon kale loogu daray mar saddexaad oo soo laabtay markii saddexaad waa lagu masii karaan waxaan dada iska leh laba kartoon qaadatay intaas ilaahay kugu anfaa Allah waamur wuxuu dhahay marka oo kartoonkooda cunuga oo la dhaaway doono dhahay marka asaas dadku soo saara wuxuu dhahay hooyada ma kartooyi diidaysa adaba hooyada waa ku dhaaway waa soo degi doonto tamarta maana laamiga baawurka taagna gudaha meesha la gelinayo waa gali waay baawurka markay tamartii oo la dhameeyay gudihiisa la wada galay
ninkan kulli waa la soo wada galay wixii oo askari meesha joogay wixii shacab ay wixii oo shaqaalaha gudaha la soo galay ninkan ana meesha markaa gudaha isla wada galnay ninkaas yani waa isla taagneen ninkan oo waxa soo galay qorigiisii ushiis wata ninkaas oo isku dhuftay waraan adiga wada wasbeedina waa anaaba qabtay ninkan wuxuu dhahay leeyahay saxaaw iska dhaafaan dhahay ninkan ana la soo shaqaalaha kulli waa isla soconaa wuxuu dhahay saxaaw wax laba korto waa lagu sii wixii rabta oo ilaa alafkan waa lagu siin doonaa wuxuu dhahay saxaaw aniga shaqaan wadan adigna shaqadaada wada unigaana maku soo gaara anaa kaa celina waa wada meeshii shaqadaata waa ku wada gudaankii wuxuu dhahay waayahay uu dhahay wax qaybiskii la bilaabo ayadoo wixii soo ninkan waa soo daba maray haddana ul kale uu soo qaatay uligii ku kala jibi ushii markay ka kala jabtay ulig waa soo jeeday qoriga afkiisu ku dhuftay qoriga afkiis markaas saasuu ku dhuftay uligina qorigaas saas ka dhahay ninkan gadaal u taraaraay saddex badoodoo soo gamay hala biilaa waa gudbila wax baa ku dhacday saasa wax u jiraan adiga maxaa ahayd maxaa ka taa shaqaale ma ka taa meesha shaqaale oo tamarta dejinay oo aniga dejineen aniga dadka madax loo soo saaray tamarta waa la siinay shaqaale oo baawrka la socday waa isla soconay unig madax yaa loo saaray tamarta adiga tamarta dadka dhanaa la siinay marka baawrka binaanka gudaha waa galay inaa wax la siiyo qof walba soo qaato oo madax loo saaro socdaa la rabay tii waa shaqeyn weysi marka waxay noqotay waa in tamartii gudaha la geeyay oo dadkii gudaha lagu soo sii oo baawrkii macnaha meesha lagu dira marka shaqaalaha waa la soo qaaday gudaha la geenay ninkaa meesha labada kortoon banaanka lagu soo sii labada kortoonka saddexaad oo la isku dagaala makusina oo aflagaadada ka dhacaysa kortoonka saddexaad uu ahaa yarka ninka la dhaawacay asigana wuxuu ahay kan la dhaawacaya hamaaliya bislahaynaba xamaaliga soo hogaamiye ma laha ani waa hogaamiye anaa u ahay hogaamiyaasha xamaalida taadiga marka maxaa aflagaadihii aan dhahay darbaxsha ugu bilaabo dhawa garaaco ma jirta waxa la isku dagaalay laba korto waalisi midkii saddexaadiisii maku siinay ninkan horta timirtiyaa qaybinaya anigaa qaybanayay hay-ad miya mise dowladdu ayaa qaybinaya hay-adaa ahayd tamarta hamarweynadaalaaba laga qaadayba meesha laga qaybanayo waxaa ahayd lambar 4 markaa hoogoo la dhaafo wasaaradda argaas amaha isla meesha laga qaybana marka baawrka aan dhameyn waay gudaha waa geli waay walla marka gudaha amniga muqaabilsanay marka meesha amni aana loo keenay si dadku wal celinay markii oo timir haliisi dhaa ninkii oo wax loo wadaa uu sheegay waa dhaan ninkaas aanu leeyahay waxaad sheegtay in gacan qaadka uu bilaabay yaasiin bal waxaa jirtay in koor ee cilaaqtameen صح وبناك اللي سوسو دقالي صح cilaaqtankaasi waxaa ka dhashay in dhaawac dhaco صح صح ciidan kaleeto oo goobta joogay oo la shaqeynayay waa ay jireen صح ciidan ma jiray kuwa hore waa u joogeen asigana waa joogeen maadaama aad hogaaminaysay xamaaliga meesha jooga dhan hogaankoodii aad ahayd صح ma isku dayday ficilkan intuusan dhicin inaad xaliso bas dadka amniga qaabilsan oo meesha joogo ma ulo iyo wax macnaha loogu tala galay mi amniga ku sugayeen dadka masaakiinta si meesha ugu celiyaan ma sahub iyo qoryo wateen ul iyo mi dadka ku celinaa mise qoryo wateen ushii qoriga waa isla wateen labadaba waa isla wateen taariikhdu markay 24 bishii September ayaa meesha waxa lagu bixinay raashin oo ka kooban kartoomaad ku jiraan timir kartoomaadkaas waxay leeyahay 3,000 oo macnaha kartoon oo dad masaakiin loogu qaybinayo shaqadii waa ay socotay xilli gabagaba ah oo maaragtay saacaddu ay ku beegan tahay 8 saac iyo 25 daqiiqo ee hawsha naga soo gabagabay askari aan garanayn meel uu ka yimid ayaan goobta ku arkay waxaan ku yiri niyo meesha maxaa ku keenay anigu gudaha ka shaqeynayay wuxuu ugu yiri niyo maanta oo dhan aan shaqeynayay banaankaas aan ka shaqeynayay oo yaa ku dirsaday shaqada wuxuu yiri niyo laamigan maray waa isaga soo leexday maadaama meesha ay shaqo ka socoto saasaan shaqada ku galay okay waxaa yiri gudaha ha gelin baawurkii aan soo kormeeray oo banaanka yimi kartoomanka laba kartoon ugu dambeysay ugu codsaday inaan siiyo
waan ka diiday marka xamaaligaan usoo dhiibay gudaha geeyaan iri gudihiyaan ku arkay mar labaad hawshana waa gabagabo kartoomaanka waa dhammaadeen timirta masaajidkaan galay xilli dambe ahayd salaadiiaan gabagabay ahayd waa dhammaystirtay salaada duur anoo masaajidka ku jiro 8 saac 25 daqiiqo ma 35 daqiiqo aan banaanka u soo baxay banaanka markaan u soo baxay waxaan arkay askari tuuto wato iyo nin shacab ah oo qori ku taagaya koobihii intaan gashanay ayaa maaragtay xabadihii dhaceen xabadihii mar alla markay ay dhaceen ninkii maaragtay shacabka ahayna gadaal u dhacay ninkaana inta ka daba tagay gadaashiisa imidaan ka qaaday qorigiyaan ka qaaday waana xiray ninka askariga ah kadibna waxaan ku wareejiyay adaa amniga waxa la qaybinaya maxay ahaayeen waxaa la qaybinaya waxay ahayn kartoomaad ay ku jiraan timir yaa qaybihayo hay-adda sodma mas-uuliyadda meeshaasa iyo dadka ilaalintooda adiga u xil saaray soo maa waa la ii sareeyey laakiin meeshaas goobtaas anaa markaas mas-uulka ahay waqtigaas macnaha waqtigaas askarigan yaasiin yaa u dhiib howsha inuu dadka raacdeeya oo dadka kala celceliya kaamiradas ka muuqatay okay horta shaqadaasi horta aniga gudahan ka shaqaynayay albaabka dadka soo deysmadooda iyo maaragtay waxaa ka shaqaynaya 2 wiil kale oo ka tirsan hay'adda sodma aniga iyo wiilkan kale oo booliiskaana waxaan ka shaqaynayna gudaha si dadkaan ugu arurno waxyaalaha dhibaatada keeni kara sida midiyaha bakooradaha dhibaatada keeni kara waxyaalahaasaan ka aruurinayn dadkana safkaan ku hageen laakiin bannaanka waxaa jooga 2 wiil kale joogeen albaabka ninkaan marka mid ahay dadkii subaxdii la dhahay howshan saana loo qabanaa adigaa qabanaysiin adigaa ka mas-uula dadka lama ku jirin maya oo safka markaas waxaa shaqada soo gelayseen dadkii howsha idinla qabanaa la dhahay ma ku jirin maya ma ku jirin goorma ogaateen inuu howsha hayo aniga mar dambe oo maaragtay adiga 7 saac wax la jiraa ninkaan bannaanka ku arkay waxaan ku yidhi xaggee ka timid markaas wuxuu yidhi aniga waddadaan marayay meeshaan macaamil lagu qabin aan ku soo leexdo ugu yidhi marka qof wadisata male macnaha shaqadaas maya xaqooda maasanta intiina kala bilisa ahayd marka laga reebay ninkaan maya 2 booliis iyo 2 hay'adda ka tirsan iyo 2 hay'adda ka tirsan hawshu markay dhamaato adi aad aragtay hub ma wadan miya wuu wataa maya 2 wiil askar ma ahan waa 2 wiil oo shaqaynaysay ma kula wadaagin mise ma kula wadaagin haay maya leewaay kulama wadaagin Soomaa ninkan inuu la shaqaynayo Soomaa kulama aysan wadaagin maya lama wadaagin bes meesha taagna bes waayahay markii ugu horeysay aa aragtay eedeysanaha shaqada uu hayo waa ku qanacday Soomaa eedeysanaha waxaan indheyga saaray mar oon gudaha aan ka soo baxon bannaanka imid oon kontroolayo gaariga inuu dhammaaday iyo inay wax ku hareen xilliga shaqada dhamaatay waa waxaas aragtay oo kartoomaanka baabuurka laga soo xareeyay socotay mis arkin inta ka horeysa ma arkin anagoo shaqo ku jirna ayaa xarunta waxay nagu yimaaday askariga militariga aniga gudaha ka shaqaynayay maray abbaaray ay tahay 7 saac aniga gudaha ka shaqaynayay baabuurkiina gudaha loo geli waayey baabuurka meelaha la bixinayay marka baabuurkii albaabkii geli waayey bannaanka laga soo daldalay maray 7 saac ay ku dhowdahan waxaan arkaa askarigan iyo ninkaan xamaali isku dhegan iyo dadkii qaylina dhanka markaasaan usoo fiiriyay ninkaan oo gadgadaal usii dhacayo xabado ninkii xabado gurida arkay waa ka sameeyay gudoomi ninka meel lagu soo galay ma qaanba shaqadana shaqo kuma lahayn waa ka saa way shaqeynaa soo ciidanka dhanka albaabka marka aan gudaha ka shaqeynaa marka dhanka albaabka soo fiiriyaba waa uga jeedaa dhanka jalka oo taagnaa kan la xabada lagu dhifto muxuu ahaa maadiga xamaali waha iyo dhaawacanaha dhibanaha waxaa dhex maray cilaaqta muran hadal inta uusan xabada ridin sax haymay sax murankii dhex maray wuxuu sababay in xabadi ay dhacdo dhaawacna uu yimaado sax sax qoriga marka uu ku leeb garaacay ninkan wuu xanuunsaday waa ilaa qof jug ku dhacday waa moo wuu soo orday ninka kala toor marka askarigii wuu soo orday ammaanka uu furtay 3 baaloo tooriday 2 kamid ah gashay marka ajirka uu dhacday idinka baabuurka asaarantiin maxaa ka qabanaysiin baabuurka tamirta soo qaadayna waa sii saarayna shaqaalaha u saarayna marka wixii xamaali waa moogtaa haddii la soo qaado 4 3 bo
waa sii gudbinayna baqaar gudaha la gelinaya marka baabuurka meesha lagu dejinayo iyo irideeda saa u istaagsan yahay meeshiina marka maamooyinkii dadkii wax loo qiibinaya meesha buuxaan marka wixii aniga ninkaan wada wax la gaarsiinaya baabuurkaas la saarana markaas baabuurka ma ka dejaysid idinka baabuurkaas oo anaga waa soo dhiibayni xamaaliga u dhiibayni shaqaalaha kuwa kale markaas waxa loo geynaa maamooyinka wax loo qiibinayo gudaha la gelinaa gudaha waxa ku jiro dad ku jiraan dadkaas markii waxay sii qabanayaan maamooyinka la siisiinaa kan markii labada xabba siiya idin idinka qof dhaay male asi xoog oo loo sheegtay waayo macnaha anaga xamaalitaanay mo asigi kurtoon koowaad markuu qaatay mid labaad oo xoog ah rabaa u dhaay uu qaatay mid saddexaad uu qaatay inuu qaato horay waa ka diidnay marka kurtoon saddexaad ma dhiibi kar lagu kurtoona qaatay ana ma ii diiday meeshii isku khilaafay marka si xun kan marka labadiina adii ninka dhaawac naqanaya asri maxaa asiga la dagaal u galay baabuurka la isla saarneen goobta ciidankii joogay ee xasilinta ahaa booliiska ka shaqaynaya goobta iyo ciidamadii kaleeto ee hay'adda oo albaabka hore ilaalinayay amar la'aantooda gudaha lama geli karo sax bis waa mahadsantahay markanna warbixintii lagu dul istaagay diiwaankiisa ciidamada iyo muuqaalkii laga helay been masheegtada CCTV ee goobta oo ay xafiiska xiraalintu soo bandhigeen in eedeysane yaasiin uu qor inta la baxo lugta ugu dhufto waxa mamarsiyada cajiibka waxa kamid ah gudoomi in uu yaasiin dhahayo maxamed abaadir oo aad aragtay ayaa iga xoog badan iga qamarjisan ikala tuuray maxamed waa aragnay yaasiin maxkamadda jooga maxkamadda ila qiimeyn doonto yaasiin qamarjisan yaasiin xoog badan yaasiin tababar qabo yaasiin guutada 25 ka tirsan maxamed abaadir waa shacab waa xamaali waa timir qaade isku mid ma goobta farqu ka dhacmo gudoomi waa tana goobtaas waaye waxaan rabnaa marka baalotooyinka meesha ka bixi meeshaan waxaan daari doonaa kaamiro waxaad arki doontaa gudoomi xabadahan ilaahay xamdigiisina dhaano waay hal nin ay ku dhaceen laakiin 3,000 oo qof aan maxkamadda la keenaa u dhibanayaal qaarkood dhintay qaarkood dhaawacyaal ilaahay maadiis waa ninkaan leh ku dhaawac goobta qaabkii u taala marka miska dheena waa maye goobta waa tana gudoomiye goobta uu falka ka dhaco waxaan rabaa meeshaan suko oo bajaajta B iyo dameerka agtiisa oo ninka shaati cadaha u taagay waxa hadda soo istaagay asiga oo socdo say margeeda sheegeen eedeysana yaasiin eedeysana wuxuu wareysanayaa ninka shaati cadaha ee gaariga ag taagay wuxuu weydiinayaa goobtan wax ka jiro asigana wuxuu leeyahay bal gudaha galay weydii waa dhaqaaqeedeysani wuxuu galay gudoomiye maxkamadda u jeeda uu qaatay hore wuxuu ka bilaabay Motofe County inuu waabiyo gudow galay uu wata qorigna saan u wata wuxuu kala raacday waa dadkii hooyooyin tuma waa kaas waa yaasiin waa kaas waa soo raacday qaybta labaad qaybta marka waxa waa mid gudoomiye kaamir gudaha ma jirto laakiin attention ka dareemaysa dadkan 3 baalooto oo baas ahay maqleen maxaa dhici doona marka meeshaas loo kala firir doona fiirso waa kaas waa 3 kun oo meesada oo qof xabadiye maqleen waa daateen dadka waa daateen banaanka dadka ku garaacay gudaha markii la galna ninka masaakiinka u garaac xabadana ku dhuftay waa taas mootada u gurmanay mootada ku orday mootada waxay soo qaadi doontaa dhaawaca maxamed cabdi abaadir oo meesha yaal من قدومي كورميرا لباد عبد الله علي عالم وحو غتay shaqadii booliiska ee saxda wuxuu sameeyay inuu qoriga ka qaado wuxuu u wacay laanta baarista CAD do diris la sidaas ayuu ku ruureeyay waana shaqada laga rabo ninka booliiska ah ee goobta ka mas'uulka ah waana ku mahadsan xafiiskuna u mahad celinaya dhaawac gaaray waa kan ninkan ajirkiisa saan u foqay dhaawacan waxaa gaarsiiyey eedeysana yaasiin sidaana u ahaa lugiisna u fiicnaaday laakiin ajirkiisa saana laga dhigay inuu taagtaagsadaana
maxaa yeelay waxaa laga xoogaya timir waxaa loo dila timir waxaa loo dila hal karto isaga mala xamaali waay idin uma haystino baxsho haddana wuu sharfay mid koowaad mid labaad mid saddexaad haddana laga sii qaad oo xoog ku keenaa waxaas oo dhan waxa ku sameeyayna waa askari xoogga dalka Soomaaliyeed baraha galkan ayaa maxkamadda ku biiriyay natiijada ka soo baxday baarista mudane gudoomiye taariikhdu markeed 24 bishii 9aad 2025 waxaa qaybta baarista dambiyada CID lagu soo xiray eedeysanaya Yaasiin Xuseen Abuukar kaasoo loo haysto fal dhaawac oo uu geystay dhibane Maxamed Cabdi Abaadir falka dhaawaca uu ka dhacay degmada Wadajir gaar ahaan Hargeysa ay saamaha ee xarun u tahay hay'adda musiibooyinka maareynta wuxuu falka dhaawaca uu ku geystay qoray AK47 nambarkiisu yahay 22 37 asagoo xabada baasa ugu dhuftay lugta wuxuu falka dhaawac sababta ugu dhufanayna waxay ahayd kartoon timira oo kartoonkii saddexaad uu rabay inuu ka qaato natiijo baariseedkeena markaan si dhab ah u baarnay gal dacwadeedkan aan ka qornay qoraalna ka sameynay labada dhinac iyo maragyada tagnana goobtii dambiga ka dhacay helnayna waraaqadii dhaawac muujinta waxay noo caddaatay fal dhaawac kas ah oo uu geystay oo mas'uulna ka yahay eedeysane Yaasiin Xuseen Abuukar hay-adda masiibooyinka iyo booliiska basa meesha ka shaqeynaya sax waa dhaawaca ku soo eedeysay qodobka 440 maadaama jab aysan jirin mataqaanaa doorsoomid qodobka 44 farqadiisii koowaad sax waa mahadsantahay xeeraliye kabtan Cabdicasiis Cusmaan Cabdiyare ku-xigeenka xeeraliyaha guud ee ciidamada ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysane Yaasiin laga qaado magta dhaawaca dhibanaha isla markaana lagu xukumo qodobada eedda shaqooyinka askariga laga rabo waa difaaca dalka sugidda ammaanka ilaalinta xuduudaha ixtiraamka sharciga iyo xuquuqda shacabka meeshaas ma gudoomiye waa muhiim ixtiraamka marka la dhaho sharciga waa maanta meesha hortaagan yahay eedeysane Yaasiin shacabkuna xuquuqdooda maxaa waa Maxamed Cabdi Abaadir xuquuq u lahaa in madaxa loo salaaxo in dhar military markuu arko inuu habsiiyo ma uu sameeyey kartoonuu siiyaba kartoon labaaduu siiyaba midka saddexaadna wuxuu yidhi abow awoodeyda maaha ayaa loo dilay ayaa loo dhaawacay ayaa cajirka la fujiyey ayaa bas lagu qabtay qoraygaas ee baaska ee ka dhacaysa muu gudoomiye waa qorayga lagu gaday canshuurta Maxamed Cabdi Abaadir iyo dad kale mid ah laga qaado muu gudoomiye askariga suuban maxaa laga rabaa daacadnimo iyo wadaniyad anshax iyo edeb ciidan geesinimo iyo dulqaad shaqo dulqaad maxaa waa asaga inta uu soo qaatay wuxuu doortay aan ka soo qaadno shaqadiis shaqada inuu gudanayaa aan ka soo qaadno wuxuu joogaa goob wuxuu joogaa dad badan ay joogaan 3 kuna asaa uu soo qaat asaa aaday cid uma dirsan shaqadiisa maaha kuma oga dawlad ciidanka xoogga dalka ma ogo booliiska ma ogo kuwa kale xatay ma ogo kormeer laba Abdullah Ilmi ma ogo haddana dulqaad la'aantiisa kartoon kala soo raacsi waa diid hadduu diido maxaa bannaan tuugmo iyo waxaa bannaan inaad madaxda meesha joogto aad tartiib u weydiisato wuxuu sameeyey marka dulqaad dar baas uu ka raab ku siiyey baaska waxaa loogu talagalay kooxda gawaarita al-shabaab waxaa loogu talagalay cadowga furamaajo ma aha Maxamed Cabdi Abaadir oo kale ma loogumana talagelin mudane gudoomiye naxariis iyo ilaalinta xuquuqda muwaadinka waa mid ugu dambayso askariga suuban laga rabo naxariis ma sameynin miskiinka waa xamaalanay hooyo iyo abbaa ka dambeeyo caruuraha ka dambayso guriyo ka soo tagi intaasoo dhan looma fiir mudane gudoomiye waa lugooy lugtiisaan u taalla saan u tagtagsana maanta wax ma qaadi karo ku dhawaad bil meelow yaala waxaasoo dhan yaa ka dambeey waxaa ka dambeeya eedeysan Yaasiin waxaa ninkaan ku soco qarash baan waxaasoo dhan asigaaba xamaali ah intuu ka awoodaa mudane gudoomiye waxaasna waxaa ku sameeyey eedeysan Yaasiin
من قدومي قصر محكمة شرفت له وعماشان كاني مريو محمد حسين وحو عدي إن كرتون كواد إلا بعض السيئ كسدحان وضط وداو عني كان لمبر لبو كورما يلا بعد وحو عدي شغالي بوليس كأنه قبطي هدي فالماشا وكدعو عدة جيستين أنا بحسن وأنا مدى حفيز كحير العالم تقولي رجلين أيو محكمة مركا ماشاس وعدين أنا إنه قلتي شغالي هاد اللي قلت لك كورما يلا بعد عبد الله على العلم من قدوم يقصر محكمة شرفت له دولة هدي أكتها باهي كينيسو إن دتكاس لما ماري قرن لغو ماري عبد الله إيه نيكي كلو حسن أهاو ماشان إماري أيا لغو تلقري قرن لغو مارينا ماشاس بوليس كالجي بوليس كانوا على طبرا بدبادين تا إيه كلي علين تا إيه كهرتك هي كانت السنة وقت جاس عيدن كبرمت هذا وحي كانت السنة عيدن كفي بي ودريميسا إن عيدن كفي بي لوحلو وحيالها كيناي وإدبت إيه أغلاق الصوب ويقولوا من قدومي قصر محكمة شرفت له ninkii meesha ugu sareeyo kormeeraha labaadna ma ogo shaqadu ninka uu qabtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa ka soo arrimay meeshiisa shaqada uu qabtana ma meesha wuxuu ka abuuray arqalad dhibaato waxaan ku soo eedeynay xafiiska markuu intaas arkay koow inuu dhaawacay dhibane maxamed cabdi abaadir dhaawacaas waa dhaawac culus markuu xafiiska ah baaragraf 3 ku soo eeday maxaa yeelay 3 baalood nin ajar ka gashay wax saalam ma oo ninkaana ah lambar 2 wuxuu meesha ka saaray mamarsiimad aheed in ninkan si jir ahaan isku dhigmaan man isku dhigmaan maxkamaddu arki kartaa oo asaga ka xoog badan number 3 wuxuu xafiisku cadeeyay arqaladeen xasiloonidu goobtaas mar alqaladay 3000 isbuuratay 3000 ayaa xabaa 3 xabaa lagu riday dadkaasna meesha ku baabi'i lahaayeen yaasina ka dambeeyay wuuna cadeeyay camera CCTV ayuu keenay maxkamadda sharafka waxa ka codsanayna كو إن كو كنتو مكتب لبني محمد عبد أبادر أو أهانيكا حمالي مساكينكا لمبر لبو محكمة حان شرفت لك عسنينا إن كو قادو وضبط عن كسو إيريني ولي بحبس أرق كو كنتو سياسا أودعين أسجري قوتا شقا أنا شقدي سأحين لبعتلك أدلنا شنو أركو إذن كان كوان توان ونقطو ميل لما تابتانا qareenka ayaa isna codsaday in muwakkilkiisa la siiyo xuriyadiisa maadaama uu ahaa nidaamiye waxaan qareen u ahay yaasiin xuseen abuukar oo ah eedeysano loo haysto qodobka 440 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh ugu horeyn waxaan rabaa inaan halkan ka difaaco qodobada lagu soo eedeeyay ee kala ah 440 farqadeeda saddexaad 333 326 iyo 325 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh maxdarkan maanta aan fadhino ma la soo hordhigay dhammaan qodobadan lagu soo eedeeyay eedeysanaha mase lama soo hordhigin su-aashaas jawaabteedu waxay noqonaysaa in badan oo qodobada ka mid ah lama soo hordhigin marka laga reebo qodobka 440 oo isagana aan gudageli doono waqtigiisa mudane gudoomiye garsoorayaal warqadan waxaa loo isticmaalay maragyadaasoo ugu horeeyey maraggii koowaad ee warqadan loo isticmaalay wuxuu ahaa maxamed xuseen soo duuduubinta su'aalihii aan weydiinay jawaabteedu wuxuu ka baxshay maxamed xuseen in muran dhex maray dhibanaha maanta laga garnaqaayo iyo eedeysanaha dhibanaha dhibkaasi dhex maray iyo murankana uu sababay inuu ka dhasho falka dhaawaca ah taasina waa midda asagana uu qirsan yahay in cilaaqtankaasi ee sababtay
dhaawacaasi waana kor istaagayaa hadduu alla idmo sidoo kale waxaa la keenay kormeere saddexaad bool cabdullaahi cali cilmi cabdullaahi wuxuu sheegay horta in mas-uul uu uga sarreeyey goobta shaqada laakiin isaga goobta shaqada mudane guddoomiye ee uu ka shaqaynayo xafiiska xeer ilaalinta wuxuu yidhi shaqadiisii uu qabsaday waa ku ammaanan yahay kuma ammaanee shaqadiisiiyuu dayacay waana sababta keentayba in dhibkaana uu dhaco maxaa daliil u ah ciidan marka goob la geynayo mudane guddoomiye oo la leeyahay ciidankani ha ka howlgalaano goobtaani shaqana ha ka qabtaano waxaa loo baahan yahay xasilinteedii inuu la yimaado ma la yimid kormeerihii inta soo istaaga xasilintii lama imaan waana sababta keentay in dhaawaca ay ka dhalato wuxuu yidhi ma maqlin in goobta uu ka shaqaynayo mana ii sheegin meeshaan dadkii lasoo joojiyena maxay sheegeen kulli maxay ka wada markhaati kaceen dadka inta fadhiyo markhaatiyaasha in goobta uu ka shaqaynayo yaasiin in dadka uu kala celinayo yaasiin in nidaamkii uu asagoo nidaamkii iyo kala celintii samaynayo in dhibkan uu ka dhashay baarihiina muxuu yidhi maba ka shaqaynaynin muxuu ka ogyahay marka markhaatigiisii aasaas dhahaay mudane guddoomiye qirashada eedeysanaha loo arko mid ay tahay xaalad isdifaacideed ee carqaladii ka dhalatay isagoo iska difaacaya kana cabsaday dadka tiradaas la eg oo maanta xafiiska xeer ilaalinta ee sheegay inay yidhaahdeen 3,000 oo qofood ay ahayd in ay qorigiisa la qabsadaan xataa cabsi oo kaga cabsanayo isdifaacideeda inuu xabadaasi u rido waa kow labo in la caddeeyo inuusan jirin ujeeddo qaas ah ee qasad ee uu u lahaa dhibane maxamed cabdi sababtoo ah dad badanaa joogo wada xamaali ah dadkaas dhan muxuu u wada abbaari waayo maxaa asaga iyo maxamed bes ku koobay kiiska waxa ku koobay waxa waaye duruufta jirto iyo carqaladeynta meesha taagan saddex in eedeysanaha lagu siiyo xorriyad buuxda ama ugu yaraan in lagu dabaqo qodobka 34 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maadaama dhaawaca xafiiska xeer ilaalinta farqada saddexaad uu isticmaalay oo asagaas laftirkiisa mudane guddoomiye wuxuu leeyahay 5 nuqdadood oo kala qatarsan maadaama uu sheegay inaysan laf jabin maadaama uu sheegay inaysan dareenkii ka tagin maadaama uu sheegay in mataqaanaa uu cad wax uusan ku qabsan karin xibnihiisa kamid ee uusan ku oolin ee uu yiri jirtay dhex martay dhaawacaasi loo fiiriyo dhaawac fudud sida baaraha uu sheegay oo yiri sax waaye farqada koobaad qodobka 440 ee gungaarkaygu ku dhisan tahay halka eedda ay khilaafayso farqada saddexaad oo la saari karin sidaas daraadeed maxkamadda waxaan ka codsanayaa sida uu ii sheegay in ehelkiisu ay ku maqan yihiin wada hadal inay ku raadinayaan inkastoo dhibanihii oo yiri wax noo yimid ma aynan arkin maxkamaddu u tixgeliso maxkamaddu waa mahadsan tahay maxaa maxkamad ka codsanay maxkamadda waxaan ka codsanayaa aniga weligay aad kama galin dowladda nin shacabna weligay wax ma gaarsiin maanta iga horeysa ninkaan gaarsiiyey maxkamadda waxaan ka codsanayaa in oo kiiskayga ii fududayso gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cafta xaqyaar warbaahinta qaranka muqdisho